subscribe taada waxay noo tahay dhiirigelin, sidoo kale like inaad noo saartidna waxay noo tahay dhiirigelin. aad baad u mahadsantihiin. isbuucan waxay ahayd isbuuc lisku jabay kooxooyinkii waaweynaa ee 5 koox oo ugu waaweyn ama big sixkii dhammaantood waxay ciyaareen kulamo classic matches ah. laakiin inta badan kooxooyinkaas way guuldareysteen oo ciyaartooda waxay ku dhamaatay bareejo iyo qaar laga badiyay. marka laga reebo hal koox, hadda waa hal koox. kooxdaas koox kale maahan, waa kooxda horyaalka u tartamaysa, kooxda serious ka tahay inay ku guuleysato horyaalka, koox ugu cadcad ku guuleysiga horyaalka Barclays Premier League. kooxda dunida oo dhan waqtigan buu u cilaamisay ku guuleysiga horyaalka Barclays Premier League. kooxdaas koox kale maahan, waa the Gunners. Arsenal waa kooxda kaliya oo cadaadiska isbuucan ka badbaaday. Arsenal waxay la ciyaartay kooxdii ugu adkeed 3 xilli ciyaareed la soo dhaafay, kooxdii ugu adkeed oo ay guul ka gaari weysay. koox kale ma ahayn kooxda Aston Villa ahayd. Aston Villa Arsenal 3 xilli ciyaareed ama 2 xilli ciyaareed horta ugu dambeeyay wax guul ah kama gaarin. 4 kulan ay ciyaartay wax guul kama gaarin. xitaa lugtii koowaad ee xilli ciyaareedkan Barclays Premier League Arsenal wajahday Aston Villa wax guul kama gaarin. Aston Villa badisay, Arsenal waa la garaacay. Arsenal waxay diyaar u tahay sanadkan ku guuleysiga horyaalka Premier League. markaan ku leeyahay Arsenal waxay muujisay dhabar adeeg, waxayna wajahday Aston Villa, waxayna la ciyaartay kulan nolol iyo geeri ah. way ka baxday Arsenal deeqada 4 gool ay ku haaqday. kooxooyinka Arsenal pressure-ka saaray ama lahaa horyaalku ay kula tartamayaan sanadkan Liverpool, Manchester City iyo sidoo kale Chelsea, Manchester United. adi kooxooyinkii waaweynaa oo dhan oo Arsenal cadaadis saari lahaa dhammaantood bareejay wada galeen. Manchester City waxay ahayd kooxda ugu daran oo Arsenal cabsida ku beereysay, ama Arsenal hadday soo badisa 2 dhibcood bes ay u jirtay. hadda 3 bilood labadaas dhibcood la taagnaa. 3 bilood ugu dambeysay Arsenal labadaas dhibcood ay ku dhigleed. waxay taageertaa kuwa bal iga fujinaa. Man City waxay dhahaysay dhib oo ku haya. Arsenal dhigi maay horyaalka ana taagan. Manchester City waxay leedahay dhib Arsenal ma dhibay, wax dhibcaan dhigay ma lahan. isjiijid dheer kadib Manchester City iyadaaba dhib la. iyadii 2 dhibcood ka laga sii jari. Arkabtan Xhaka ani waa ku wata. Granit Xhaka nin weyn waa ku wata mas'uul. Granit Xhaka meeshii ka jir raga ka jir. habar yar guuleyso saa ugu jirnay xalay. habar yar guuleyso hayeelin habar yar guuleyso oo ku adkay raggan jilbaha dhulka u dhig. Xhaka Captain Fantastic Arsenal hadda adi bisa ka maqaneed yaaq, laakiin shaqaa ku dirsanay dhib ma laha. Captain Fantastic anaga shaqaa u dirsanay, banaanka u dirnay. kooxooyinkii Arsenal la tartami lahaa ma arag asaa baqas u wataa lagu ka jiraya. wana Granit Xhaka anteena aga maqaneed. ninkan Arsenal ina ka dirna faa'iidina wayno ahayd, qasaarana wayno ahayd. qasaaro waxay nooga ahayd waxaa meesha ku luminay hogaamiye ruuxi ah, nin Arsenal wax badan ku soo kordhiyay, hogaami dhiig leh oo kooxda Arsenal meel fog gaarsiiyay, oo hadda haddii joogi lahaana Arsenal darajada maanta joogta mid ka sii sareysa joogi lahayd. taas waxay ahayd qalad maamulka Arsenal sameeyeen iyo qasaarana Arsenal ugu tahay inay lumiso xidig Granit Xhaka oo kale, oona adag tahay in laga helo maanta kubadda agta laga helo xidig Granit Xhaka xitaa u dhow in laga helo. Arsenal dadkan ku soo lacag beeshay oo ay soo aruurisay xitaa ma jira hal xidig oo Granit Xhaka masaafo intan la eeg soo jirsan kara. Captain Fantastic alaanikan kani waa Captain Fantastic, waa xidig oo wax walba garoonka dhexdeeda ku sameyn kara, waa hogaamiye ruuxi ah xidigaha gadaashiisa ku jira aan idna gaari karin, waa hogaamiye ruuxi ah meeshuu ka jiheysto ama dagaal ku qaada warcad ku keenaa.
faa'iidada Arsenal ugu jirta Granit Xhaka inay dirto tan koowaad Granit Xhaka iyo Arsenal nasiib way isku yeelan waayeen oo inay koobab waaweyn ku guuleystaan. Granit Xhaka Arsenal oo ka tagay faa'iiday u ahayd Bayer Leverkusen oo tagay Horyalo unbeaten ku soo qaaday. markaas wuxuu dhacay in Lena ay soo dhacay Premier League aada. Arsenal koobkeeda uu soo dhicinaa. Arsenal koobkeeda aniga uu soo dhicinayo taaganya ku guuleysiga Premier League Arsenal anoo ka maqnaa ka caabina. waana naga caabi waa aragtaa. kooxooyinkii waaweynaa oo Arsenal la tartami lahaa dhammaantood dhigaxu ku garac. mid uu dhaafi ma laha. mid uu garaca iyo mid uu bareejo ku celiyay. Granit Xhaka anaga waa ku wadanaa. mar walba waxaa tahay kabtankeena, mar walba waxaa tahay hogaamiyeena ruuxiga ah. waanu ku jecelnahay, waanu ku xiisi doonaa Granit Xhaka. shaqada xalay noo qabateen 100% waxaan ku leenahay thank you. Captain fantastic, thank you. اسبوعا مانشستر سيتي بريجي جسي تشيلسي sidoo kale Man United sidoo kale horta Chelsea iyo Man United ma kala fagaan dad kala bixi kara ma ahan. Chelsea haday kuufto Manchester United way ka daba seexanay abaay way tagtay leedahay anu waa ka soo daba tagaa. Hadii United badisay Chelsea way soo badinay. Hadii United breeji gashay Chelsea breeji gashay iyadana breeji taagan tahay. Yacni dad kala taga ma ahan. U fiirsa saddexdii xilliyaareed ugu dambeeyay labadaas koox laba kaalimood oo isku xigay ku dhameysan jireen. Darajooyinkoodan waxay ahaayeen kuwo isku dhow. laba dhibcood saddex dhibcood ka badan isku jirsadaan. marka iyaga waxay leeyihiin meesha joogteen la igama waay. dad isjecel waay ma kala fogaadaan. Liverpool way soo xarakaysay waa soo laabtay isku tashta waa soo laabtay isku tashta ayay noo qaadi. خير جبان لأيه دوال أوجاي. FC برانك ليس مينيس ليفربول. لايك ليفربول ويك ما تسمت كواحد ويا لما لا رده كوشيا. كوحدا ليدز يونايتد أو ليفربول حد بريجة لقى شيء. أرسنال عشان يسوي ديفتي. هذا واشن جول. ليفربول إبرة لو قد بيه حتى أنت مسوي لك كرتال له. يا مسوي لك كرتال له بريجة لو قد بيه أو نيل مانشستر يونايتد iyadana ilmihii yaryar ka wajahada iyadana draw. Chelsea sidoo kale ilmihii yaryar ka ku dul kuftay draw ay gashay. halka koox la dhahay marka Arsenal ee cadaadis waa ku sii xeyn doontaa waxay ahayd Manchester City iyadana xalay cunaa la qabtay dhab draw looga dhameeyay. Waxad waa eber gool dhanka ma dhalano kulankaas eber looga dhameeyay. taas waxay ka dhigan tahay Arsenal inay horyaalkan u jirsatay masaafo 4 dhibcood ah. Arsenal oo 4 dhibcood horyaalkan ku qabateen waxay ka dhigan tahay Arsenal oo horyaalka sidan ugu dabaaldegtay. hadda de waa bye. waxaa la islahaa Arsenal Boxing Day lagu gaada dhaawacyadooda badan Boxing Day lagu gaada Boxing Day ku Arsenal lagu gaaday ma kuwii dhaawac ku baqnaa aab imaaday oo diyaar ah. waxay leeyihiin intay xabad ka soo dhacis anaga joogna anaga xabad ku dhiganayne meesha raga ka joogo. marka Ghana sanadkan imaamadeeda lama haysan karo. waxaan leenahay Arsenal hambaliyo. waxaa kaloo dunida maanta xustay dunida maanta waxay xusaysaa xidiga Arsenal weerarka ugu ciyaaro ee Victor Gyökeres iyo sidoo kale qadka dhexe ee Manchester United Kobe Mainoo iyo sid la mid ah xidiga kooxda kubadda cagta Barcelona iyo hulka qaranka Isbaanishka Lamine Yamal Gyökeres iyo ninka la yiraahdo Kobe Mainoo saddexdooda waxay sameeyeen inay lacag isku aruuriyeen saddexda xidig inay lacag isku aruuriyeen waxay sameeyeen dadka homelesska ee Mareykanka homelesska ku ah ama dadka guri la'aanta ah oo Mareykanka laga soo deeriyay oo banaanka seexada. lacag inay isku aruuriyeen saddexda xidig waxay sameeyeen waxay u dhiseen guriyaal oo dadkaas seexadaan iyo biil oo ay cuna uga dhigtaan lacag ay cuna uga dhigaan ay u sameeyeen. iyagayna waxay taagan yihiin anaga garabkooda anaga caabinayn. Victor Gyökeres iyo ninka la yiraahdo Yamal iyo Kobe Mainoo waxaan leenahay iyagana hambaliyo muuqaalkan shar gareey asxaabteeda meel fog gaarsiiyo muuqaalkan.